لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد haddaba marka waxaan soo hadlaynay aanu ka soo warramaynay raddigii ku saabsanaa wadaadkii naqdiyey ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan marka soo dhaafnay laba muxaadaro oo ku saabsanayd intii yarayd ee hadalkiisa ka mid ahaa nuqdo marka aan ugu radinaynay dabeed muxaadaradii labaad aakhirkeeda waa tii aan ku soo qaadnay inta aanan u gudbin qaybaha kale hadalkiisa ah inaanu ka hadlayno bal ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa u daliila marka waxaanu soo sheegnay ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam culummadu inay u daliilsadeen kitaabka iyo sunnada iyo qiyaaska dhanka ijmaaca haddii la eegana walow qaarkood ayba soo qaadaan wax muslimiintu ay ku kulmeen inay tahay suurtagalna ay tahay awqaadaha qaar ka mida inayba ku kulansanaayeen oo aan cidi aysan dood ka qabinin haddana meesha beddelkeeda waxaanu ka hadlaynaa oo in badanna lasoo qaadaa in muslimiinta badankoodu ay ixtifaalka ay qabeen marka sawaadka acdamka shayga la yidhaahdo oo jumhuurta islaamku waxa ay qabaan ayada laftigeeda haddii la eego waa daliil oo waxyaala adilaaye nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka soo arooray ayaa jidha oo sida yacni adiladuba ay u tusinayso ijmaaca xaqiyadiisa ijmaacu inuu xaq yahay haddana waxaa soo aroortay adilo tusinaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida yacni uu yidhi in sawaadka acdamka laftigiisu iyo sida muslimiintu ay u badan yihiin laftigeedu inay tahay xaq marka inta aanan ka hadlin waxyaalaha qaybaha noocaasa ee loo daliilsado ixtifaalka bal marka hore waxaanu ka hadlaynaa horta shaygaan ixtifaalkaa ee la sameeyo muxuu marka hore ka kooban yahay ilaa waxa weeye ixtifaalku waa kulan la isku yimaado waxyaalo ayaa kulanka gudihiisa lagu sameeyaa marka muxuu ka kooban yahay bal marka hore waxaan ku hormaraynaa oo adilada aan soo qaadayno hordhac u noqon doona inaanu ka hadalno ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka kooban yahay marka waxa uu ka kooban yahay markii la eego waa wax shay walbaba daliil xagga sharciga ku leh marka ixtifaalka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka kooban yahay 4 arrimood ayuu ka kooban yahay sida badan midda ugu horeysa waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam in taariikhdiisa iyo siiradiisa laga sheekeeyo midda labaad waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam in la ammaanee tilmaamihiisi wanaagsanaa lagu ammaano oo tilmaamahaasi ha ahaadeen midda khalqiyada ah ama midda khuluqiyada ah waxa ilaahay uu ku uumayo sida ilaahay uu uumay ee nabiga daatadiisi shariifada ahayd ay ahayd si qurux badan baa ilaahay uu uumay ama nabiga tilmaamihiisa ee khuluqiga ahaa oo dabeecada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu siiyey ee aada iyo aada u wanaagsanayd ee ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay wa innaka la calaa khuluqin cadiim nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi addabanii rabbii fa axsana taadiibi rabbigay baa i edbiyey edabtayda waa uu wanaajiyey qodobka saddexaad waxa weeye waa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo oo meelaha nabiga ixtifaalka mawlidkiisa lagu samaynayo waxaa in badan ka dhaca nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga lagu sallinayo kan afaraad waxa weeye itcaamu tacaam waa in cunno la bixiyo weeye oo dadka yacni imaanahaya kasoo qeyb galahaya ixtifaalka ama xafladda nabiga mawlidkiisa loo qabanahayo in cunno la siiyo marka waxyaalaha afartaa uu ka kooban yahay kulligood haddii la eego xagga shareecada islaamka daliil bay ku leeyihiin mathalan taariikhda in laga warramo waa wax qur-aanka laftigiisu marka uu ku yimid sheikh la yidhaahdo axmed zayd kitaab uu leeyaho khulaasatul kalaam la yidhaahdo macnaha markii uu ka warramayo wuxuu yidhi
قال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الله التاريخ في كتابه واستنبطه بعضهم من قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وحي عبد الله بن عباس وحي إلهي تاريخا wuxuu kusoo qaaday taariikhda kitaabkiisuu kusoo qaaday qur-aankiisa. marka sheekhaas wuxuu qaarkood waxay kala soo baxeen buu yidhi aayadda ilaahay uu yidhi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nusabitu bihi fu'aadaka. ilaahay wuxuu yidhi dhammaan waxaanu kaaga qisoonaynaa rususha yacni akhbaartooda wax adiga qalbigaaga aanu ku sugayno oo rususha akhbaarta dhankeeda waxaan kaaga qisoonaynaa wax adiga laabtaada aan ku sugayno. marka suuraddan waxaa ku yimid buu ilaahay yidhi ee akhbaarta rususha ka hadlaysa xaq baa ku yimid waanaa ku timid iyo xusuusin dadka mu'miniinta la xusuusinayo. marka hadda ibnu cabbaas hadalkaa laga soo naqlinahayo mar yacni uu soo qaaday jalaalu suyuuti kitaabkiisa la yidhaahda kitaabu shamaariikh fi cilmi taariikh wuxuu yidhi وقال ابن عباس رضي الله عنه قد ذكر الله التاريخ في كتابه فقال يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ومرك عبد الله بن عباس وحيدي إلهي تاريخي بو شيغي وكتاب كيسو كو شيغي مركا وحو سوق هذا آيات دي أهيد بليه بيكو ويدين هيان إلهي ويري سورة البقرة وكويري بلوه مركا ذاتك يعني وقت بيويهين ووحيالها سأيوه ay ku madadaysanahayaan ama ay ku ballamahayaan ama ay ugu talagalahayaan awqaadda ay ku ogaadaan iyo xajka laftigiisa isagu waqti ah. marka warka cabdullaahi ibnu cabbaas haddii la eego marka yacni wuxuu ka hadlahayay taariikhdan kale ayada la yaqaanay mathalan shayga in la xadeeyo oo bil iyo maalin iyo sanad iyo lagu xadeeyo sida hadalkiisa ka muuqatana waxa weeye wuxuu marka daliil u samaynahayay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aanay jirinin xilligiisa taariikh. waa tii cumar ibnu khataab uu sameeyey intuu asxaabta la tashaday taariikha hijriga ah. marka sida muuqata kaasuu marka daliil u samaynayo isaga laftigiisa haddii la eego in diinta laga qaadanayo. aayaddan kale marka culummada qaarkood ay ka istinbaadsadeenna ayaduna waa aayad waadix ku ah oo marka ilaahay wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli waa taariikhda qeybteedii oo kale oo mathalan qeybta kale taariikhdu ay leedahay oo waa maxay wixii dhacay marka in laga sheekeeyo ee dadkii soo hormaray adduunyadan gudaheeda kusoo hormaray waxay ahaayeen in laga warramo siiba kumaba sii jiraan ilaahay ambiyadiisii iyo dadkii saalixiinta ahaa. ummadaha kale laftigeeda wixii soo maray waa laga warramaa iyagoo lagu cibro qaadanayo sida nabiguba calayhi salaatu wasalaam uu yeeli jiray. ilaahay marka ambiyada iyo saalixiintii wuxuu kusoo qaaday kitaabkiisa ayuu kusoo qaaday qur-aankiisa. bal hadda fiiri suuradda maryama oo kale waxaa ilaahay uu amray in la sheego ayuu ilaahay amray. ambiyadii ilaahay suuradda uu kusoo qaaday in la sheegana ilaahay uu amray suuradda gudaheedii buu ku amray. ilaahay suuratu maryama wuxuu ku yidhi wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaanan sharqiya. nebi maxamedow qur-aanka dhexdiisa waxaad ku sheegtaa haweenaydii maryamo la oran jiray. markaa waxaa sheeg la yidhi ee laga qisoonahayaa arrintii qisadii dheerayd ee ku saabsanayd dhalidda yacni wiilkeedii ay dhashay nabi ciise calayhi salaatu wasalaam. oo ilaahay uu leeyahay markay reerkeeda ka fogaatay ee xilliga ay aragtay fooshu inay hayso ee marka ay u fogaatay meel dhanka qoraxdu ay kasoo baxda ku aadan. marka qiso dheer waa tii lagu soo qaaday. ilaahay haddana isla suuraddaa wuxuu ku yidhi wadkur fi lkitaabi ibraahiima inahu kaana sidiiqan nabiya. qur-aanka waxaad ku dhex sheegtaa nebi ibraahim. nebi ibraahim wuxuu ahaa midkii run badan buu ahaa. run sheegiisu waa uu badnaa yacni midkii beenta ka fog buu ahaa. midkii ilaahay daacadiisa ku run sheega ayuu ahaa. midkii sidiiq ee rumayn badan buu ahaa. waxyaalaha yacni quyuubta ah iyo waxyaalaha uu arkahaya aayaadka ilaahiga ah. markaa waata laga sheekeeyey qisadii yacni cajiibka lahayd ee isaga iyo aabihii dhex martay iyo hadaladii wanaagsanaa ee aabihii uu ku odhanhayay oo markaa uu ku waaninhayay. baarinimada ziyaadadan ay ka muuqatay. sidoo kale suuradda ilaahay wuxuu ku yidhi
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كتابك النبي موسى كشيك بالنبي الويل أيضا إلهي مركا النبي موسى وكورهمي مركا وشيغا إنو يهمد مخلص وطاعديس إلهي أصافي لي أمام مخلص هدين الأخرية وقرأك من إلهي وحمان ونبا وكندي فيه إنو رسول أو النبي إلهي يقول لي ورد وارني بوليها بورتي لين عيدي مدكتها ونقد وارني ماشي إلهي وكره لي النبي موسى وهذا كإلهي وكما قال وقربناه نجيا وأنسؤال وينيب إلهي لنبي موسى أنه والله فقينا مركزو هذا وحو شيغي نحريستا يعني وقلنا حريسنا هيو نبي موسى درادد إنو يعني أبوه بي ولالكي هارونها ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون النبي معنى ولالكي هارونها أيو وحو بي أسوء النبي والنبي بالله قرنك ولبا أسرع سلا إلهي كدل بليعص كعط صلي إلهي صدوك رسول الله وحو كسو قال النبي وكويلي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إلهي وحي القرآن كواحد كشيك تابو يري إسماعيل كشيك إسماعيل وحوها متكي يبوه يسؤوري هيبوها وحوها رسول والنبي أيها أهل كيس صلاة دي زكاة دي بفرج جري وحوها إلهي أكتس متكي رالي لغيهي أيها سناسا إلهي عندنا القرآن كإلهي وكسو قاضي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. معناها النبي محمد والقرآن كواحد كشيكتا نبي إدريس كشيك وحوها متكي صديقا أيها يرهمين بضن نبي بواها ميل سرا أيام قادني بإلهي بل إلهي سورة داوحو كشيكي أنبياء قاركو دلشدو دي بكشيكي ومركي إلهي وكورنهاي مريم قصديدي ويلكيدي كصابسنا عيسى إلهي وحويلي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أصدقوا كشيكين هيا هذا الكي يعني معجزة لها أصدقوا مركا بشيء ويلي عيسى ابن مريم نبي قاسي أها النبات قال يدو شيدا أي أهاتي مالنتي أنو عندشو يا مالنتا ليسو عندما هيو يا مالنتا ليسو بخير هيا والله وحو كلام وحو أها قصدي يحيي وحو كوير هدنا مركي إلهي وكورمهي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إلهي وحو يلي نبت قليو وحي كوركي ساهات يحيي مالنتا لدلي يا مالنتا ودمان هيو iyo maalinta la soo saaraya asagoo nool. marka meesha waxa ka muuqanaya ambiyadaas in la soo qaaday markay ilaahay wuxuu soo qaaday markii uu ka warramahayay nabi ciise iyo yaxya qisadooda markii uu ka warramahayay nabadgelyada iyaga korkooda ahaatay maalinta ay dhasheen. marka iyada ayaa loo hormariyay sababta marka loogu hormariyo loo soo qaaday macnaheeduna waxa weeye qofka waxa la yiraahdaa nicmada ilaahay uu siiyay waa nicmo aad iyo aad u badan wax la koobi karana ma aha. sida quraanka ba ilaahay uu ku yiri wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hadii ilaahay nicmadiisa aatirisaan ma koobi karaan ilaahay uu yiri. marka nicmadaas ilaahay qofka yani uu siiyay waxa marka asal u ah baa la yiraahdaa nicmada la yiraahdo nicmatul iijaad. إلى النعمة معناه دو حوي قفك إلهي إنه أمي أو مركا إلهي وهيسي أسوأ أنجرين مركا النعمة كستو إلهي وكسيو وحي كرتين بيسايا كدن بيسان نعمة دا اللي مرها دان لغو صباينين عدن باته وحنجرين باته. مركا إلهي هذا مركا سيدا كم مغريسا قرانك إن بضنبو إلهي أنبيدي سكور رمي dadka loo saalixiin oo aan nabiyaal ahayn ayaa quraanka looga sheekeeyay sida nabi ciise hooyadiisa hadda laftigeeda aan soo qaadnay waxa kamida dilqarnayn laftigiisa waa kamida luqmaanul hakiim laftigiisa kamida ah. ilaahay marka iyo dad kale ayaa quraanka lagu soo qaaday oo ayagu marka aan anbiya ahayn ayadoo laga warramayo
oo wixii yacni ay ahaayeen lagu ammaanahayo. bal iska dhaafay ilaahay rasuulkiisu wuxuu faray reer banu israa'iil in laga sheekeeyo sidii bukhaari iyo rag kaleba ay wariyeen oo ay ka wariyeen cabdullaahi binu cumar nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi balliquu cannii walow aaya waxadithuu can bani israa'iila walaa xaraj. oo xadiidka cabdullaahi ibnu cumar laga wariyo wuxuu ahaa nabigu inuu yidhi iga gaarsiiya walow aayad ba allaha ka dhige reer banu israa'iilna ka sheekeeye ka warramaa nabigu yidhi wax dembi la yidhaahdaana kuma sugna haddii arrimahoodii aad ka warantaan. ibnu abidunya muxadidka la yidhaahdo wuxuu wariyey kitaab asagu uu leeyahay oo la yidhaahdo juz-u man caasha bacda almowt. waxaa kaloo haddana uu wariyey wakiic ibnuljarax kitaabkiisa kitaabu zuhdi la yidhaahdo wuxuu ku wariyey. labadooduna waxay ka wariyeen saxaabiga la yidhaahdo jaabir ibnu cabdillaahi. jaabir wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xadithuu can bani israa'iila fa inahu kaanat fiihim ilcajiib. nabigu wuxuu yidhi reer banu israa'iil ka sheekeeyu yidhi ka warrama wixii ayaga u dhacay, ayaga gudahooda waxaa ku sugnaa waxyaalo lala yaabo ayaa ummadaas ayaga dhexdooda iyo dhankoodaba ka dhacay. xadiidka hadda aan soo sheega waxaa kaloo wariyey muxadidka la yidhaahda axmed ibnu maniic ayaa wariyey, musnad buu leeyahay. waxaa kaloo wariyay abu yacla ayaa wariyey. xadiidkaasina waa xadiid jayid ah sida yacni uu soo qaadanahayo ibnu rajab kitaabkiisa la yidhaahdo ahwaalulqubuur. oo xaafidka ibnu rajab la yidhaahdo markuu xadiidka kitaabkiisa uu kusoo qaado wuxuu yidhi haadaa isnaadun jayidun. haddii xadiidkaa sanadkiisa uu ka warramahayey oo sanadyadiisa qaarkoodu yacni meesha uu ku sheegay wuxuu yidhi kani waxa weeye waa sanad oo jayid ah weya. bal ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa asaga laftigiisu habeenkaa oo dhan reer banu israa'iil inuu ka sheekaynayo sida yacni uu wariyey bazaar iyo imaamu axmed dabaraanina kabiirkiisa uu ku wariyey. waxayna ka wariyeen cimraan ibnu xusein bay ka wariyeen. marka hadde bazaar asaga kitaabkiisa waa la iska yaqaanaa, waa kitaabka kashfulastaarka la yidhaahdo. imaamu axmedna waa musnadkiisa. marka waxay ka wariyeen cimraan ibnulxusein bay ka wariyeen. qaala cimraan wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yuxadithunaa caamata leylihi can bani israa'iil laa yaquumu ilaa licudmi salaati. wuxuu cimraan ibnu xusein uu yidhi ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa habeenkiisa badankiisa reer banu israa'iil nebigu ayuu nooga sheekaynayay, umana kacayn ilaa salaada midkeeda weyn maahane. salaad weyn hadday timaado, salaada weyn waxaa looga jeedo waa fasilkeedu waa noo soo socdaa. haythami markuu xadiidka uu ka warramahayey ee markaa uu kusoo qaaday kitaabkiisa majmucu zawaa'idka la yidhaahdo wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun buu yidhi, xadiidkaa sanadkiisu waa saxiix. marka riwaayada imaamu axmed ayada lafdi ku sugnaa wuxuu ahaa ilaa licudmi salaatin la yidhaahdo ee markaa salaada la nakireeyo. salaad midkeeda weyn ayaa nabigu u istaagaya waa si kale nabigu yacni uma kacayn waa oo markaa la nakireeyo. marka musnadka imaamu axmed baa waxaa ku sugnaa asagoo yacni waxa weeye la fasirahayo waxa cudmu salaadka looga jeedo yacni almaktubata almafruuda almaktubata alfariida. macnaha nebigu wuxuu u jeedaa salaada yacni faradkaabuu u jeedaa oo salaada dadka lagu dhigay dushooda ee lagu waajib yeelay ayuu nebigu u jeedaa. marka macnaha waxa weeye qisooyinkoodaasuu waday salaadu waajiba inay timaado maahane kama kacayn waa. waxaa xadiidkan haddana wariya xaakimka ayaa musadragiisa ku wariyey oo asaga lafdigiisa wuxuu ahaa ilaa licadiimi salaad. wuxuuna yidhi markii uu ka warramahayey waa un lafdi hadde lafdiga meeshaas lafdigaas waa un sheegay alfaad kale laftigeeda ee kuwan kale lamida waana isku macne. macnaha waxa weeye hadalkii buu fasirahayaa cudmi salaatintii wixii looga jeeda ama cudmi salaati ila macnaha waa licadiimi salaatin sida hadda riwaayada kale ka muuqanaysa waa salaad midkeeda weyn. cudmiga macnihiisu waa cadiim weeye. waayahay wuxuu yidhi xadiidka markii uu wariyey haadaa xadiidun saxiixu lisnaadi walam yukhrijaahu. kani waa xadiid sanadkiisu uu saxiix yahay laakiin bukhaariga muslim ma aanay soo saarin.
xadiidka haddana waxaa wariyay hadda aan soo sheegnay abu daawuud baa isna wariyo wuxuu ka wariyay cabdullaahi ibnu camar. marka bazaar laftigiisu riwaayada cabdullaahi ibnu camar waa uu soo qaaday, walowba labadan riwaayo oo cimraan ibnu xusein laga wariyey iyo cabdullaahi ibnu cumar labaduba ay yani saxiix yihiin, haddana bazaar meesha uu kala rajaxaya oo wuxuu soo qaadanaya kitaabkiisa kusoo qaadanaya ikhtilaafka marka yani abi hilaal iyo hishaam ninka la yidhaahdo ay labadan raawiyo saxaabiga xadiidka laga wariyay isku khilaafeen. markaasu wuxuu leeyahay hishaamun axfadu, hishaam baa wuxuu leeyahay xifdi badan. markaasaan filahayo kulleyba wuxuu rajixi jiray yani xadiidkan dhanka yani laga wariyey oo wuxuu sida yani xooga badan wuxuu markaa ka dhigi jiray, inkastoo labada ninba oo ninka ka warinahaya labadan hadda uu soo qaado sanadka ku jira oo nina uu ka warinahayo markii la eego riwaayada cimraan ibnu xusein, nina uu ka warinahayo saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu camar, labaduba laba lagu kalsoon yahay ay yihiin, laakiin ninkan kale ayaa si xoog badan buu leeyahay. kolley waxaan filahayaa inuu ahaa ninkii muxuu ahaa cabdullaahi ibnu camar xaggiisa ka warinahayay, oo kolba hishaam baa dhankaa ka wariya. marka wax kastay tahaba xadiidkaasi waa xadiid saxiixa weeye. marka haddaba haddii ilaahay rasuulkiisu uu reer banu israa'iil ka sheekeynahayay, in habeenkaa oo dhanna uu ka sheekeynahayay, in laga sheekeeyana uu amray, haddaba makhluuqa ilaahay midkii ugu khayrka badnaa in laga sheekeeya marka maxay noqonaysa nasaga siiradiisii la sheego waa ko. marka nabiga siiradiisa in la sheego faa-iidooyin baa ku sugan. faa-iidooyinkaas waxaa ka mid ah tacaruf, nabiga in la barta ayaa ka mid ah. qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi awalam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruuna, ma waysan rasuulkooda aysan aqoon oo markaa ay inkiraan. marka tacaruf nabiga inaad barato waxaa ka mid a waxaa nabiga siiradiisa ku sugan cido iyo ictibaar, inaad ku waano qaadato aad ku fiiro qaadato. waxaa ka mid ah waxaa nabiga siiradiisa ku sugan ta-asi, nabiga yacni in lagu daydo ayaa ka mid ah, oo nabiga hadaladiisa iyo afcaashiisa looga daydo, sida qur-aankaba ilaahay uu kusoo qaada uu yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana, ilaahay rasuulkiisa dayasho wanaagsan baa ku leeday. nabiga siiradiisa la sheego waxaa ku sugan qofka yacni jacaylkiisu inuu yacni ziyaado, oo nabiga waxyaalaha fadaaisha ee ilaahay uu siiya marka la sheego, iimaankiisu inuu xoogaysto, oo nabiga mucjizooyinkiisa markii la sheego, arrimo badan baa ku sugan nabiga siiradiisa in la sheego oo faa-iidooyina waa. marka yacni waxaan tirinaynay ee aan kusoo jirnay waxyaalihii ixtifaalku uu ka koobnaa. marka hadda marka hore waxaanu sheegnay haddeer yacni aanu noo dhammaato aanu ka hadalnay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. arrinta marka yacni labaad waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam in la ammaano wey, ee markaa nabiga lagu ammaano tilmaamihiisii wanaagsanaa nabiga calayhi salaatu wasalaam, ee markaa loogu ammaano qasaa-id la mariyo iyo madaaix nabiga lagu ammaanahayo baliiqaa ee xeel dheer. ilaahay nabiga uu ammaanay qur-aanka aayaad badan buu ku ammaanay, asxaabtu nabiga way ammaaneen asagoo nool oo nabiga hortiisa ay taagan yihiin bay ammaaneen. raggii nabiga ammaanay waxaa ka mid ah xasaan ibnu thaabit, cabdullaahi ibnu rawaaxa, kacb ibnu malik iyo rag kaloo saxaabada ka mid a. nebigu mimbar buu xasaan u sameeyey masaajidka, ee markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu mimbarkaa uu dul istaago nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ammaanahayo. sida tirmidi iyo abu daawuud caaisha ay ka wariyeen, qaalat caaisha waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa yadacu lixasaana mimbaran fi lmasjidi yaquumu calayhi qaa'iman yufaakiru can rasuuli illahi aw qaala yunaafixu can rasuuli illahi, wayaquulu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina allaha yu-ayidu xasaana biruuxi lqudus maa yufaakiru aw yunaafixu can rasuuli illahi. xadiidkaa marka ay wariyeen tirmidi iyo abu daawuud caaisha ay ka wariyeen wuxuu ahaa caaisha inay tiri ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa saxaabi xasaan la oran jiray mimbar masaajidka inuu u dhigi jiray, isagoo mimbirkaa ku dul istaagahaya xasaan, isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhankiisa ka faantamahaya, nabiga ammaanahaya oo nabiga yacni difaacahaya. rasuulku markaa wuxuu oranhaye ilaahay xasaan wuxuu ku xoojinayaa ruuxulqudus,
jibriil buu ilaahay ku xoojinaya. inta uu nebiga ka faanahayo, nebiga uu faaninahayo oo nebiga uu difaacahayo, jibriil baa awood macnawiya siinahaya. marka meeshaa macnaha waxaad garanaysaa xataa yacni in lagu ayidahayo macaanidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaani lahaa iyo hadaladii fiicfiicnayd ee nebiga madxigiisa uu ka cabiri lahaa kuna difaaci lahaa. tirmidi markii xadiidkaa uu wariyey gadaashiisa wuxuu yidhi haadaa xadiidun xasanun saxiixun gariibo. kani wuxuu yidhi waa xadiid xasana oo saxiixa oo gariiba. marka kitaabka tuxfatulaxwadi la yidhaahdo wuxuu sheikha iskalihi uu kusoo qaaday mishkaadka sheikha iskalihi inuu yidhi markuu xadiidkan sheegay akhrajahu lbukhaariyu, bukhaari baa soo saaray. marka wuxuu haddana kaloo meeshaas uu ku yidhi tuxfatulxawadi sheikha lihi xaafidku wuxuu fatxulbaariga uu ku yidhi buu yidhi xadiidkan markuu sheegay oo tirmidi u nisbeeyey hadal lafdigiisu uu yahay wadakara almiziyu fi ladraafi ana albukhaariya akhrajahu tacliiqan naxwahu wa atama minhu lakinii lam arahu fiihi. wuxuu yidhi mizi, xaafidka mizi la yidhaahdo kitaabkiisa adraafka la yidhaahdo wuxuu ku sheegay xadiidkan bukhaari inuu soo saaray oo markaa isagoo mucallaqa laakiin sanadkiisa aanu sheegin sidaa uu kusoo saaray. oo wuxuuna soo saaray buu yidhi xadiidkan tirmidi mid lamid ah ee weliba ka dhammaystiran laakinii lam arahu fiihi. wuxuu yidhi ibnu xajar asqalaani laakiin anigu xadiidkan bukhaari kuma arag. marka xoogaa warkaa waxaan usoo qaadahayaa meelaha qaarkood ayay ku qoran tahay iyadoo bukhaari loo nisbaynahayo. marka waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa yacni waxyaalaha soo arooray waxaa ka mid ah bukhaari uu wariyey haytham ibni abi sinaan in la yidhaahdo inuu abi hureyre uu maqlay asagoo yacni waxa weeye fii qasasihi yadkuru nabiya yaquulu ina akhan lakum laa yaquulu rafad. isagoo macnaha waaladiisii markaa ku dhex lehee nebiga yacni ku sheegahaya isagoo markaa yacni oranahaya ina akhan lakum laa yaquulu rafad, walaal adinka idiin sugnaaday wax xun oran mahayo. walaalkaa wuxuu uga jeedaa oo cabdullaahi ibnu rawax. markaa riwaayooyinka qaarkood waxaa ku sugnaa isla bukhaari oo marka ay ka cabirahayeen can ilhaytham ibni abi sinaan annahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu wa huwa yaqusu fii qasasihi wa huwa yadkuru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ina akhan lakum laa yaquulu rafad. marka hadda hadalka ka ninka odhanahaya inkastoo waxa weeye riwaayada bukhaari markii daahirkeeda la eego warku war duuduuban uu yahay, laakiin sidoo warka daahirkiisu u eg yahay waxa hadalkan odhanhaya waa abu hurayre weeye. abu hurayra sidaa leh. sidaa laftigeedana waxaa caddaynhaya walowba muxadisiinta qaarkood si kale ay u fahmeen oo warkaa nabiga ay u tiiriyeen. ibnu xajar asqalaani baa fatxulbaarigiisa ku caddaynhaya oo riwaayaad kale sidaa tusinhaya, riwaayad sidaa tusinaysa ayuu muxadisiinta qaarkood uu kasoo qaadaya. waaya marka abu hurayra wuxuu leeyahay walaal adinku aada leedihiin waxun oran mahayo. wuxuu ujeedaa waa cabdullaahi rawax oo wuxuu ka hadlahayaa ammaantii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay ee markaa yacni abyaadii wanaagsaneed uu ku ammaanay. qaala wuxuu yidhi buu yidhi cabdullaahi ibnu rawaxa wa fiinaa rasuulu llahi yatluu kitaabahu ida nshaqa macruufu min alfajri saaticu araana alhudaa bacda alcamaa faquluubuna bihi muuqinaatun ana maa qaala waaqicu yabiitu yujaafii janbahu can firaashihi ida stafqalat bilkaafiriina almadaajicu. ibnu rawaxa wuxuu yidhi annaga waa cabdullaahi ibnu rawaxe annaga waxaa nagu dhex jiruu yidhi ilaahay rasuulkiisa asagoo kitaabkiisa akrinahaya. oo waxa weeye asagoo ilaahay kitaabkiisa akrinahaya waa qur-aanka. marka yacni waabadigu uu dilaaco oo markaa uu kor noqdo wuxuu nebiguna tusiyey buu yidhi hanuunkii indhala-aan ka bacd annagoo awal waxaa weeye baadi ku sugnay. quluubteennu nebiga way yaqiinsan tahay buu yidhi. waxaa qalbigeennu uu yaqiininahayaa waxa nebigu uu yidhi inay dhacahayaan. nebigu wuu baryahayay buu yidhi habeenkii isagoo dhinaciisa ka fogeynhaya gogasha ee tahajud u kacahay. marka meelaha la jiifsadaay gaalada ay ku cuslaato, gaaladu marka dhulka ay dhacdiidaan, nebigu calayhi salaatu wasalaam oo habeenkaasoo dhan ba ay hurdaan isagu tahajud buu u kacahayay.
xaafidku marka mar xadiidkan uu soo qaaday ee weliba yacni abwaabta lagu soo qaaday midkood mar sharxiisa ayuu wuxuu soo qaaday ibnu badaal hadal uu yidhi wuxuu yidhi qaala ibnu bataalin ibnu badaal wuxuu yidhi buu yidhi fiihi ana ashicra ida ishtamala calaa dikri illahi walacmaali asaalixa kaana xasana waxaa ku sugan buu yidhi xadiidka kan gabaygu hadduu kulmiyo ilaahay xuskiisa iyo camal saalixee waxyaalo wanaagsan uu kulmiyo ilaa camalkii saalixa nabiga ammaantiisi waa ka mide wuxuu noqonahayaa wax wanaagsan buu noqonahayaa ama waxaa kale nabiga hadda lagu sifaynhaye wanaagga kirmani asagana wuxuu kasoo naqliyey ee weliba raggan muxadisiinta ee bukhaariga sharxay ka mid ah sharx weliba aada u dheer buu ku leeyahay oo madbuuca markuu abyaada ka warramhayay wuxuu yidhi kirmanigaasi fi lbeyti lawali ishaaratun ilaa cilmihi beytka u horeeya oo wa fiinaa rasuulullahi yatlu kitaabahu waxaa ku sugan buu yidhi in la ishaaro nabiga aqoontiisi ilaa waxa weeye macrifada nabiga uu lahaa qur-aanka ayaa asal u ah waa wax walba qur-aanka waa uu ka qaadanhaya nebigu waana uu kala soo baxaya sidan hadda ka horba imaamu shaafici aan kasoo naqlinay wa fi thaalithi ilaa camalihi wuxuu yidhi beytka saddexaadna wuxuu ku ishaaray buu yidhi nebigu wixii uu samayn jiray yabiitu yujaafi jambahu can firaashi waa kale sida nebigu habeenkaa oo dhan hurdada macaankeeda intuu uga kaco markaa uu tahajudhayo wa fi thaani ilaa takmiilihi gayrahu fa huwa kaamilun mukamilun wuxuu yidhi beytka labaad ee araana alhudaa bacda alcamaa fa quluubuna bihi muuqinaatun ana maa qaala waaqicu waxaa ku sugan buu yidhi nebigu dadka kale inuu dhammaystiri jiray fa huwa kaamilun mukamilun nebigu waa mid buuxa ummadana marka dhammaystirhaya kaa weeye ee markaa kamaalaad iyo darajooyin gaarsiinhaya haddii wixii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la yimid markaa ay qaataana ay ku camal falaan sida asxaabu rasuulillahi ba ay sameeyeen iyo ciddii nabiga ku dayatoo dhan marka sida axaadiis badan ba ku timid nebigu ashcaarta wanaagsan nebigu wuu dhagaysan jiray kuwa xikmadda u saaxiibka ah nebigu wuu dhagaysan jiray waa xadiidkii saxiixa ah ee bukhaari waa tii uu ku sugnaa ina min ashicri la xikma nebigu inuu yidhi dhagaysigiisa waxaa ka mid ah xadiid muslim uu wariyo shariid ibnu suwayd uu ka wariyey waa ninkii thaqafiga ahaa shariid baa wuxuu yidhi radiftu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yawma maalin baa nabiga fangal u noqday buu yidhi daabad baan fangal ugu noqday fa qaala hal macaka min shicri umayata ibni abisalti shayu ninkaa umayata ibnu abisalti la yidhaahdo gabaygiisa wax ma ka haysaa buu yidhi qultu marka waxaan idhi buu yidhi nacam waxbaan ka haya qaala markaa nabigu wuxuu yidhi buu yidhi hiihi marka yani waxaa loo isticmaala ii ziyaadi laakiin mar haddii hadda hadalkii lagu bilaabay ay bilowba ay tahay meeshaan hore waxay ku fasiraan macnaheeda bimacnaa qul baliraah fa anshadtuhu beytan markaa beyt baan u mariyey buu yidhi fa qaala hiihi baa nabigu markaa yidhi ii korbi huma anshadtuhu beytan beyt kalaan u mariyey buu yidhi fa qaala xataa anshadtuhu 100 beyt ilaa wuxuu yidhi 100 beyt oo qasiidadaasa nabiga aan u mariyo marka waxaa riwaayaadka qaarkood ku sugnaa ardafanii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama khalfa ilaahay rasuulkiisu gadaashiisu ifangeli marka riwaayo waxaa ku sugnayd kale in kaada la yuslim xadiidka lagu daro macnaha nebigu inuu ninkaas wuxuu sigay buy waliba nin islaanimo ku dhintay ma aha waa dadka nebiga waa uu soo gaaray laakiin nebiga waa uu beeniyey waxaana ku qasba waxay ahayd masayr baa galay oo isagu diimihii hore ee masiixiyiintu ka warqabay weliba qolooyin si xaqa u haysta ayuu la kulmay asnaamtii yani tolkii carabtii ay caabudi jireen wuu ka leexday marka yani wuxuu ka maqlay kutubaha hore carabta in nabi laga soo saarayo markaas wuxuu islahaa xoogaa asagu iska dhaadhiciy oo jeclaystay nebiga asaga inuu noqdo waa ko asaga laga dhigo haddii marka nebigii asaga uu noqon waayo nebi maxamed lasoo saaray xaasidnimaa gashay laakiin wuxuu lahaa abyaadu wanaagsan oo markaa ilaahay uu ku ammaanhayo oo waxyaalo wanaagsan oo fiican uu ku sheegayo marka nebigu wuxuu yidhi ninkaasi gabaygaas uu tiriyey daraaddeeda inuu islaamo ayuu sigay buu yidhi riwaayo kale waxaa ku sugnaa falaqad kaada yuslimu fii shicri riwaayadaasaa cadde wuxuu sigay gabaygiisa dartiisa inuu islaamo marka mawduuca haddii la eego oo waxa weeye qasaa-idda waxyaalaha wanaagsan ku saabsan in la marin karo la dhagaysan karo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la ammaani karahayo
waa mawduuc adiladiisu ay badan tahay laakiin hadda intaa keliyaan uga kaaftoomayn. arrinta saddexaad ee lagu sameeyo ixtifaalka waxa weeye waa nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga lagu sallinayo. nabiga marka in lagu salliyo ilaahay qur-aanka asagaa nagu amray isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay weyneynaya oo ilaahay wuxuu ku yidhi aayad ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. waa aayaddii ku sugnay suurat laxzaab. ilaahay iyo malaa'igtiisu nabigay ku sallinayaan ee kuwaan mu'miniintaaye nabiga ku salliya oo salaama sidaasuu ilahay yidhi. waa marka aayaddaa waxaa ku sugan tacdiimin weyn ee nabiga calayhi salaatu wasalaam la weynay. ilaahay khaaliq aha ee makhluuqaan oo dhanba uumay oo qof wuxuu uga baahan yahay aan la arag ee wax alla wixii kasoo harayba ay yihiin addoommo yacni mustadcafiina ay yihiin. marka ilaahay uu odhanahaya nabiga calayhi salaatu wasalaam aniga ayaa ku sallinaya weyneyn weynan badan baa meeshaa ku sugan iyo qadarka ilaahay agtiisa uu ku leeyahay. haddana yacni uu raacsiiyey in malaa'igtiisu ay ku sallinayso iyadoo makhluuqa ilaahay kuwa ugu sharafta badan ka mid ah. weliba ambiyada iyo dadka yacni waxa weye ahlu iimaanka qaybo ka mid ee malaa'igta ka fadli badan ee markaa lasoo qaaday oo sida yacni ilaahay ambiyadiisa oo kale iyo haba jireene masaladaas. laakiin xataa bini aadamka haddii la eego badankiisa ay ka fadli badan yihiin makhluuqaadka kale iskaba dhaaf. ayagoo sidaasa ayuu ilaahay haddana wuxuu yidhi ayaguna nabigay ku sallinayaan. markaasuu usoo gudba dadkii mu'miniintaha inuu amro uu yidhaahdo adinkuna salliga noocaas ee ilaahay iyo malaa'igtiisu ay samaynhayaan ka qayb gala oo nabiga ku salliya salaama. waxaa muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i abi hurayre ay ka wariyeen radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi cashra. nebigu wuxuu yidhi qofkii aniga mar keliya igu salliya ilaahay 10 jeer buu ku salli lahay. iyaduna wax aada iyo aada u weyna badan waaka. ilaahay baaba yacni abaalmarintii nebiga asagaaba ka bixinaya oo qofkii nebi moxamed mar keliya ku salliya ilaah baa 10 jeer ku sallinahaya. macnaha 10 jeer buu ilaahay u naxariisanahaya oo naxariis uu ku tacdiiminahaya ayuu qofkaas siinaya. salliga ilaahay macnihiisu waa sidaa. tirmidi iyo ibnu xibbaan waxay saxiixooda ku wariyeen cabdullaahi ibnu mascuud ay ka wariyeen isagoo cabdullaahina nabiga ka wariyay nebigu inuu yidhi awla nnaasi bi yowma alqiyaamati aktaruhum calaya salaat. dadka aniga maalinta qiyaamo qofka iigu dhowaanta badani waa midka salliga uu igu sallinahaya uu ugu badan yahay. tirmidi wuxuu yidhi xadiidun haadaa midkaani xadiidun xasanun gariibo. waa xadiid xasana oo gariiba waa rag kalena waa ay wariyeen walowba qaarkood xoogaa sanadkiisa ay waxgeliyaan. laakiin wax kasta uu yahayba hadda kii hadda aan soo sheegnay iyo midkaan dambo hadda soo socon doona iyo kuwo kale oo adag oo ayaguna macaanidaasi nabiga salligiisa in la badsada ku yimid baa jira. xadiidka marka ubay ibnu kacab waxaa ku sugnaa xadiid ubay ibnu kacab uu wariyey oo xadiidkaas marka ay wariyeen tirmidi iyo imaamu axmedna musnadkiisa uu ku wariyey xaakimna musadragiisa uu ku wariyey ayaa waxaa ku sugnaa ubay inuu yidhi qultu yaa rasuula allah inii uktiru salaata calayka fakam ajcalu laka min salaati. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiow anigu salliga aan kugu sallinahayo waan badinhayaaye intee baan salligayga aan kaaga yeelaya. qaala nabigu wuxuu yihi maa shita waxaad doonto. hadba marka waxbuu soo qaadahayey marka waxa weeye rubac thuluth ilaa markii dambe waxa weeye tirada ugu dambaysa marka dambe uu yidhaahdo salligayga oo dhan. marka wuxuu uga jeedaa salligayga intee baan kaaga yeelaya kama ajcalu laka min salaati. macnaha waa ducadaydi oo ninkaa saxaabiga ahay wuxuu nabiga ku yidhi nebiyow in badan baan anigu kugu salliyaa. marka ducada anigu aan ducaysanahayo oo sida muuqata saxaabigaasi waqti dheer ayuu ducada gelin jiray. waa siday u badnaayeen dadkii yani salafiyiinta ahaa. xayl khabar waxaa kusoo arooray ina allaha yuxibu almulixiina fi ducaai. ilaahay wuu jecel yahay kuwa yacni ku celceliya baryada kuwa ku celceliya ilaahay wuu jecel yahay. marka macnaha nabiga wuxuu leeyahay waqtiyada anigu aan ugu talagalay ilaahay inaan baryo
intee baan adiga ku siiyaa oo marka aan ka dhigaa salli adiga aan kugu sallinayo waa macnaha culamadu ay ku fasireen rag badan baa sidaa ku fasiro sakhaawi laftigiisu uu ka mid yaho xataa kooxdan sheekhooda ibnu taymiya la yidhaahdo uu ka mid yahay sida ibnulqayimba jalaalafhaamkiisa uu kusoo qaado markii dambe uu yidhi tirooyinkii markii hadba uu sheego nebigu mar walba uu ku lahaa haddii yani muxuu ahaa saad rabta yeel haddii aada ziyaadisana fa in zidta fa huwa khayrun lak haddaa kordhiso maruuc baan yani kuu yeelaa maslut baan kuu yeelaa maslutaan baan kuu ilaa markii dambe uu yidhi ajcalu laka salaatii kullahaa ducadaydoo dhan ba adigan ku siinahaya oo salligaagaan ka dhigahaya qaala idan tukfaa hamaka wa yukfara laka danbuka nabigu wuxuu yihi haddaba haddaad sidaa yeesho waxa adiga ku murjinahaya waa lagaa kaafinhaya dhibaato waxa la dhibaata ku haysa ama arrimo aakhira ha ahde mar dembigaagana waa la dhaafaya xadiidkaa marka waxaa saxiix yeelay tirmidi ibnulqayimna yani wuu ku sugay tirmidi warkiisa jalaa-ilul afhaam waxaa kaloo xadiidkan saxiix yeelay xaakimka yaro kaleba waa ay saxiix yeelay waxaa xadiidkan taxsiiniyey mundiri tarkiibkiisa ayuu ku taxsiiniyey xaafidku fatxulbaarigiisa ayuu ku taxsiiniyey bayhaqi xadiidkan waa uu xoojiyey shucabulimaan buu ku xoojiyey wadaadka kan hadda ayagu yani ay saarsadaan oo albani la yidhaahdo asaguna kutubo uu leeyahay haddii la eego dhowr kutub uu leeyahay qaarna yani wuu ku tasxiixiyey qaarna waa ku taxsiiniyey kitaabkan mathalan saxiixu tarkiibka xadiidkan markuu ka warramayo wuxuu yihi xasanu saxiixu sidoo kale wuxuu ku taxsiiniyey yani markii uu ka hadlahayey saxiixu tirmidi oo kale wuxuu kaloo haddana ku taxsiiniyey takriijka mishaadka uu ku leeyahay wadaadka kanada ayagu ay saarsadaan walowba meel kaloo aan u malaynahaya inay ahayd daciifu tirmidina uu kusoo qaaday marka xoogaa wareerkiisana waa ka mid aho waxaana yeelahaya nimankaani waxyaalaha nabiga xaggiisa ku saabsan markii la eego inta badan xaggid bay ka yihiin inay yani dhaafi waayaan maana waxay isku dayaan axaadiista inay daciifiyaan laakiin meelo badan uga hadla xooggeeda saasuu marka u badan yahay waaka hataa ibnulbaasga laftigiisu marbuu intay isku day inuu daciifiy haddana mar kalena xadiidka inuu saxiix yahay bukusha xadiidkan waa xadiid saxiixa wey wafaadu in badan ay soo qaadeen sakhaawi waxaa jira lafdi imaamu axmed uu wariyey iyo ibnu abi shayba iyo ibnu abi caasim wuxuu ku yiri isnaaduhu jayidun oo xadiidkan alfaadu ku yimid kamid a waliba wuxuu kusoo qaaday warkaas qowlulbadiic buu kusoo qaaday inkastoo hadda riwaayadaas rajulka yani aan la magacaabayn laakiin riwaayooyinkan kalaa magacaabahaya rajulkaas ubay ibnu kacab inuu ahaa midda afaraad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaalkiisa lagu soo qaadaa waxa weeye waa idcaamu tacaam cunada in la bixiyo ilaahay marka wuu ammaanay cunada in la bixiyo qur-aanku ku ammaanay ilaahay aayad wuxuu ku yidhi wayudcimuuna alطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura cunadii bay bixinhayaan ayagoo jecel miskiin bay siinahayaan agoon bay siinahayaan mid la qafaalaya maxbuusay siinahayaan ayagoo odhanahaya ilaahay dartii baan cunada idiin siinaynaa abaalmarin iyo mahadnaq midna idinkama rabno marka adilada idcaamka kusoo aroortay aada iyo aad bay u badan yihiin bukhaari iyo muslim cabdillaahi ibnu cumar waxay ka wariyeen cabdullaahi ibnu camar bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen cabdullaahi ibna camar ibn al-caas ana rajulan sa'ala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ayu lislaami khayr saxaabigaa waxay ka wariyeen cabdullaahi ibnu camar nin ilaahay rasuulkiisa inuu weydiiyey nebiyow islaamka maxaa u khayr badan macnaha waxa weeye khisaasha islaamku ay la timid maxaa u khayr badan oo islaamku uu la yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay tudcimu aطacaama wa taqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif cunno inaad bixiso cunno aad bixinaysa cid walba sii ama miskiin ha noqdo ama maxbuus ha noqdo ama qof aan intaba ahaynba ha noqdo cunno in la bixiyo qof aad taqaan iyo qof aadan aqoonin ba aad sanaanto bukhaari iyo muslim cabdi ibni xaatim saxaabiga la yidhaha waxay ka wariyeen oo isaguna nabiga uu ka wariyey nabigu inuu yidhi ittaquu nnaara walow bishiqi tamratin fain lam tajiduu fabikalimatin dayiba naarta iska ilaaliya walowba aada isaga ilaalisaa inaad la baxdaan wax kaleba xataa haddiinan haynin timir jeexeedi
haddii marka aada weydaan wax aada la baxdaan markaa naarta waxaa iska ilaalisaa hadal wanaagsan dadka inaad kula hadashaa ama wax hadaloo wanaagsan inaad ku hadashaa nooc kastaba ha noqdeen. tirmidi wuxuu cabdullaahi binu camar uu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ucbudu araxmaana wa atcimu aطacaama wa afshu salaama tadkhulu ljannata bisalaam. wuxuu yidhi nebigu ilaahay raxmaanka aha caabuda, cunadana bixiya, salaamtana faafiya, jannadii baad gelaysaan oo adinkoo nabad galay baad jannada gelaysaan oo dhibaata aysan idinkaga hormarinin sida naarta inaad soo martaan. tirmidi markii xadiidkaas uu ka warramayo wuxuu yidhi haadaa xadiisun xasanun saxiixu, kani waa xadiid xasana oo saxiixa. tirmidina marka tasxiixa uu la yimid wuu ku sugay waxaan ujeedaa mundiri, xaafidka mundiri la yidhaahdaana tasxiixa tirmidi waa uu sugay, tardiibkiisuu ku sugay markii uu kasoo guuriye ka dhacay, kuma uusan ictiraadin. waxaa marka haddana ku sugnaa xadiid imaamu axmed iyo tirmidi iyo xaakimku ay ka wariyeen arrintan hadda tirmidi xadiidkaa hore uu wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam boorin noocaas oo kale ah xataa nebigu uu sameeyey markii ugu horreyso madiina uu soo galay. oo xadiidka imaamu axmed iyo tirmidi xaakimka cabdullahi ibnu salaam ay ka wariyeen wuxuu ahaa cabdullaahi inuu yidhi lamaa qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalama almadiina, markii nebigu madiina uu soo galay. marka macnaha wuxuu sheegahayaa inuu markaa u degdegayoo raggii asagoo markaa islaam ma ahayn laakiin bal nabigaa la sheeg watuu yahuudi ahaa, marka waa kusoo degdegay oo markaa waxa weye bal nabigan soo galhaya iyo axadkan la sheegahaya iyo xaalkiisa aad aragta. marka xadiidka waxaa ku sugnaa fakana awalu shayin samictuhu takallama bihi an qaala yaa ayuha annaas afshu salaama wa adcimu aطacaama wasilu larxaama wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam. waxaan arkay buu yidhi waxa ugu horreeyo aan maqlay oo nabigu uu ku hadla waxay ahaay inuu yidhi dadkaanow salaamta faafiya, cunada bixiya, qaraabada xidhiiriya, habeenkii tukada ayagoo dadku ay hurdahayaan tahajuda, jannadii baad gelaysaan adinkoon nabad galay oo ilaahay cadaabkiisa uusan idinku dhicin. marka xadiidkaa tirmidi baa saxiix yeelay, xaakimkuna waa saxiix yeelay, dahabina waa uu ku waafaqay. marka dabaraani wuxuu ka wariyey ninka la yidhaahda hani annahu qaala inuu yidhi yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisii oo akhbirnii bishayin shay ii sheeg yuujibu liya aljanna, jannada ii waajibinahaya. qaala wuxuu yidhi tiibu lkalaam wa badlu salaam wa itcaamu aطacaam, hadalka oo la wanaajiyo, salaamta oo la dhiibo, cunada oo la bixiyo. wa akhrajahu aydan ibnu xibbaan fii xadiidin walxaakimu wasaxaxahu. waxaa haddana xadiidkaa soo saaray ibnu xibbaan, xadiidku xaakimkuna marka waa uu soo saaray waana u saxiiya waayahay oo xadiid uu wariyey buu kusoo saaray ibnu xibbaan. marka kii hore marka hore aan soo sheegno cabdullaahi ibnu salaam laga wariyey tirmidi waa uu saxiix yeelay. waxaa kaloo haddana midkaa hore saxiix yeelay xaakimka, dahabina waa uu ku waafaqay. bayhaqi wuxuu anas ka wariyey qaala anas inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi afdalu sadaqati, sadaqada midka ugu fadliga badani an tusbica kabidan jaayacan, waxa weeye inaad dharijiso beer gaajoon. xadiid waxaa ku sugan imaamu axmed bara binu caazib uu ka wariyey, barana nabiga uu ka wariyey fa adcimi ljaayaca, midka gaajoon quudi, wasqi damcaana kan oo manna waraan. weliba nebigu hadalkaa wuxuu yidhi nin acraabiyi markuu weydiiyey camal jannada gelinahaya nebigu inuu sheego. ibnu xibbaan wuxuu ku wariyey kitaabkiisa kitaabu thawaab leh oo nabiga uu ka wariyey nebigu inuu yidhi khiyaarukum man adcama aطacaama, idinka yacni doorkiinu waxa weeye waa kuwa cunada bixiya. marka axaadiida yacni mawduuca ku timidi aad bay u badan yihiin. marka dadku cunada marka ay bixinahayaan oo ixtifaalka nabiga yacni ay u samaynahayaan cunno bixintaasi, yacni waxay ula imaanahayaan ayagoo nabiga sunnadiisa ku camal falahaya, ilaahna ugu dhowaanahaya, iyo ayagoo raadinahaya nabiga shafaacadiisa. ilaahay wuxuu ku yidhi suuratu tawba wa min alacraabi waaka wa min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhir wayatakidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allahi wa salawaati rasuuli alaa inahaa qurbatun lahum sayudkiluhum allahu fii raxmatihi ina allaha gafuurun raxiim.
ilaahay wuxuu yidhi baadiyaha waxaa ka mid ah kuwa ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaynahaya ee markaa ka dhiganhaya waxa iyagu ay bixinhayaan waxay ilaahay ugu dhowaadaan nabiga ducadiisana ay ku gaaraan. markaa wuxuu yidhi ilaahay waxay u noqonaysaa waxaa ayagu ay bixiyeen oo ay u bixiyeen inay ilaahay ugu dhowaadaan nabiga ducadiisana ay ku helaan qurbay u noqonaysaa waxay ilaahay ugu dhowaanhaya. ilaahna naxariistiisa jannadiisuu gelinahaya ina allaha gafuurun raxiim. dabadii markii oo shaykhulmufasiriin ahaa aayaddaa fasirkeeda markii uu ka warramahayay wuxuu yidhi yacni bidalika wa salawaati rasuulidaas ilaahay uu yidhi wuxuu ula jeedaa buu yidhi wayabtagii binafaqati maa yunfiqu, qofkaasi waxa uu bixinahayo oo kuwa acraabiga ka mid ah nafaqadiisa wuxuu ku raadinahayaa maca dalabi qurbatihi min allahi, isagoo doonahaya ilaahay inuu ugu dhowaado ducaaa arasuuli wastikfaarahu lahu, rasuulku inuu u duceeyo oo dambilaaf ilaahay u weydiiyo. ibnu kathiir isaguna tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi markuu aayaddan fasirahayay hada huwa alqismu lmamduuxu min alacraabi, kani waxa weeye waa qeybta la ammaanahayo oo reebaadiyaha ka mid a. marka laba aayadood oo aayaddan ka horreysay ayaa acraabta qolooyin xun oo ka mida sheegaysa, tani marka waxa weeye kuwooda ficnaabay tilmaamaysaa. wuxuu yidhi marka ibnu kathiir wahum aladiina yatakhiduuna maa yunfiquuna fi sabiili illahi qurbatan yataqarabuuna biha cinda allahi wayabtaguuna bidalika ducaaa arasuuli lahum. kuwa marka reebaadiyaha la ammaanay waxa weeye waa kuwa ka dhiganahaya waxa ilaahay jidkiisa daacada ilaahay waxay ku bixinhayaan waxay ilaahay agtiisa ugu dhowaadaan oo markaa ay ku raadinahayaan nabiga ducadiisa inay ku helaan. dadku markii sadaqada ay bixiyaan ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqotee nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu u ducayn jiray. marka hadda dadkaan ixtifaalka samaynahaya cunnada keenahaya waxay cunnada u keenaan in muxuu ahaa ilaahna ay ugu dhowaadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisana ay ku helaan. haddaba marka afartii waxyaaloodoo marka aan soo qaadnay oo sida badan aan sheegnay ixtifaalku inuu ka kooban yahay, haddii aan soo tilmaamnay mid walbaaba inuu leeyahay gaara oo wax shareecada ku sugnaada uu yahay. way dhacdaa matalan qasaa-idda nabiga lagu ammaanahayo mararka kuwaana ay ka hadlahayaan inay yidhaahdaan qasaa-idda waxyaalo shirkiyaada ku jiro iyagoo uga jeeda tawasulka anwaacdiisi, laakiin hadalka noocaasa mararka yacni warkiisa uu kusoo qaado ayaanu ka hadli doonaa ee jawaabtiisa aan sheegi doonaa. marka haddaba haddii afartan waxyaalood mid walba gaarkiisa markaa yacni ay ku timid inuu yahay shay thaabit ah, waxa marka ziyaadada keliya meesha ku sugani waa maxay? waxa weeye waa hay-ada ijtimaaciyada ah. macnaa waxa weeye waxa kan marka yacni kulankan hadda la samaynahayo ee waxaan inta la samaynahayo waqtiga gaarkaa loo yeelay, taasi marka wax dhibaataa ma leh. arrin noocaas oo kalea marka way ka hadleen culamadii oo ragga ka hadlay waxaa ka mid ah ibnu rajab alxambaliy oo waxa weeye hay-a ijtimaaciya shayga inta loo sameeyo kulan ee waqti gaara loo yeelo nebi maxamed waqtigiisa aysan jirinin. waa sida hadda waxa weeye mawcidada yacni ay sameeyeen xilligii saxaabada ama taabiciintaba dhacay, dadka yacni waqti in loo yeelay layidhaha waqtigaa imaada ayaa yacni laydin waaninhaya wacdi laydin jeedinhaya sida hadda muxaadaraadka loo jeediy oo kale. marka xaafidka ibnu rajab la yidhaha alxambaliy wuxuu ku yidhi kitaabkiisa jaamiculculuumi walxikam la yidhaahdo marka yacni uu weliba soo qaaday waxyaalo yacni miithaallo ah oo ka mid a waxyaalaha salafka hadalkooda ku dhacay oo waxyaalaha bidacda ee galaal ka yimid ee la sameeyey qaarkood inay wanaagsadeen. sida wuxuu soo qaaday taraawiixdii cumar uu jideeyey, wuxuu markuu soo qaaday haddana adinkii jumcaha ee horreeyey ee cumar uu ziyaadiyey calina uu ku sugay dadkii muslimiinta ay daa'imeen. waxyaalaha mithaal ahaanta uu soo qaaday ay ka mid ahayd misxafka yacni in kitaab lagu kulmiye keliya oo sida yacni abubakar baa arrintaa amray, cumarna yacni wuu ishaaray, iyo sida mathalan yacni cuthmaan ummadii dhanba siduu hal jaamic keliya ugu kulmiyey oo jaamacyaal badan baa jira markii yacni qur-aankii la qoray kabacdi oo markaa dadkii mudamo iyo waxyaalahaas ay ka dhex sameeyeen hal misxafu marka inta yacni qoray ayuu kuwii kaleba hala baabi'iyey marka uu yidhi asagoo markaa ka baqahaya ummaddu inay kala tagto. arrinta cali bin abi daalibna waa uu wanaagsaday saxaabada badankoodi. waxyaalaha markuu soo sheegay kabacdibu wuxuu yidhi wa min dalika alqasasu buu yidhi. marka qasaska la sheega waxaa looga jeeda waa wacdiga. xataa qasaskii hadda bukhaari lafdigiisa aan kusoo qaadanayna xadiidkii hore ibnu xajar asqalaani markuu fasiraya wuxuu ku fasirahayaa yacni waa wacdi. marka xilliyada noocaasa markay qaasi soo qaadaan waa nin dadka waaninhayo weeye. waayahay
marka wuxuu yidhi wa min dalika alqasas arrintaa waxaa ka mida buu yidhi wacdigaa ka mida buu yidhi waqad sabaqa qowlu qudayf ibn alxaaris inahu bidca waxaa soo hormaray buu yidhi ninka qudayf ibnulxaaris la yidhaahdaa inuu qasaska bidca ku sheegay ninkaas marka xoogaa aduu khilaaf baa ku jira ma saxaabi buu ahaa mase taabici buu ahaa laakiin rag badan oo kamidii way soo qaadaa inuu saxaabi yahay weliba dahabi jaanibka yacni u leexanahayo o rajaxahayo waa inuu saxaabi yahay oo wuxuu yidhaahdaa cidaaduhu fi sigaari saxaaba ninkaani wuxuu ku tirsan yahay buu yidhi asxaabta yaryar buu ku tirsan yahay buu inkastoo ibnu sacd laftigiisa uu kasoo guuriyo inuu taabiciintii horeysa uu ku tilmaamo lakin kolleyba hadalkaasaa rajaxana maxaa yeelay riwaayo yacni asaga waxaa laga warinayaa xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo yar inuu nabiga hortiisa tagay wax nabiga uu ka maqlay markaa uu sheegayo marka hadalkan uu leeyahay waxaa noo soo hormaray qudayf ibnulxaaris inuu qasaska ku sheega bidca marka waa war markaa ka hor uu sheegay oo markaas uu yidhi imaamu axmed baa qudayf ibnulxaaris ninka la yidhaahdo oo somaaliga ahabu wuxuu ka wariyay qaala inuu yidhi bacatha ilaya cabdulmalik ibnu marwan ayaa iisoo diray buu yidhi ninka umooyintiibuu ka mid ahaa waa nin jaa-idu ahaa isagoo marka saxaabi ma ahayn fa qaala wuxuu yidhi innaa jamacna annaasa calaa amrayni annagu dadka waxaan ku kulminay buu yidhi laba arrimood rafci lydi cala almanaabiri yowma aljumuca gacmaha in sare loo qaado oo mimbarada korkooda sare loogu qaado maalinta jumcaha nabiga waqtigiisi ma jirin iyo walqasasa bacda subxi walcasri iyo dadka in la waaniyo salaada subaxa iyo casarka gadaashooda oo waqtigaa muxadadkaa fa qaala markaa wuxuu yidhi ninkaa qudayf ibnulxaaris la yidhaahdo amaa inahumaa amhalu bidcatikum cindii waxyaalaha adinku aada bilowdeen raggiinan madaxda ah waxaa labadaan waxa weeye kuwooda ugu sharafka badan walastu bimujiibikum ilaa shayin minha anigu marka wuxuu yidhi shay kuwaan ka midana idinka ajiibi mahayo anigu idinla samayn maayo lianna annabiya sala allahu calayhi wasalama qaala maa axdatha qowmun bidcatan ilaa rufica mithluha min asunna fatamasukum bisunnatin khayru min ixdaathi bidca wuxuu yidhi buu yidhi nebigu wuxuu yidhi buu yidhi qola yacni bidca ma soo dariyaan ilaa bidcadaas oo kale oo sunno ah ayaa la kor yeelaa marka sunno nebi in la qabsado ayaa waxay ka khayr badan tahay buu yidhi bidca in lasoo dariyo arrintan marka hadda isagu uu diidahayo qasaska ay ka mid tahay dad badan baa ogolaaday oo asxaabtii rasuul ka mid ahay oo kuwa waaweyn ahaa laakiin ninka hadda sida ka muuqata asaga waa wax xun male waa kan leh waxyaalahaad bilowdeen bay ugu wanaagsantah laakiin waa laga yaabaa sababka u diidahaya inay tahay cabdilmalik binu marwaan wuxuu ahaa waa nin nimankii umawiyiinta oo jaa-iriinta ka mid ah wax alla waxay rabaan bay samaynhayeen sharca kuma aysan xadidnayn oo kale ninkastoo weliba laftiisa uu tilmaamay waxa kale hadda ay sameeyeen waxun inaanay ahayn laakiin xadiidkan hadda uu wariyey oo asagu uu soo qaadahay qisadan hadda imaamu axmed uu wariyey ee weliba ay ku jidha ninkaani muxuu ahaa inuu xadiidkan nabiga uu ka warinahaye maa axdatha qowmun bidcatan waxa weeye xadiidkaas markii uu soo qaado xaafidka haythami la yidhaahdo oo uu kusoo qaado majmuucu zawaa-idkiisii wuxuu leeyahay xadiidkaa waxaa warinahaya imaamu axmed iyo bazaar baa warinahaya waxaana ku sugan buu leeyahay nin la yidhaahda abubakar ibnu cabdillaahi ibnu abi maryama wa huwa munkarulxadiid ninkaasina waxa weeye waa xadiidkiisa nin la inkiro wey meeshaa marka wuxuu tilmaamayaa inaan xataa xadiidkaasi marka inuu daciif yahay waa yahay marka ninkaasu wuxuu ku sheegay bidca wa qaala alxasan alqasasu bidcatun wa nicmati lbidca wuxuu yidhi wacdiga ee waqtiga xadaysan loo sameeyey ee dadka la isugu yeerayo waa bidcuu yidhi wax odow jiray ma aha waana bidco wanaagsan buu yidhi kam min dacwatin mustajaaba wa xaajatin maqdiya wa akhin mustafaad badanaa buu yidhi baryo ilaahay la baryay ilaa jamacaas muslimka ah ee meeshaa isugu tegay dalilayo muxaadaraa laydin jeedinahayaa maalin hebel muxaadaraa su-aalaa timaadnaa waqtiga loo qaydo intee baa ku sugan buu yidhi baryo la ajiibahayo markay meeshaa ilaahay baryaan ay ku ducaystaan dan la gudahayo ee markaa kaalmo in la sameeyo dadka loogu kaalmeeyo walaal laga faa-iidaysanayo oo meesha noocaasa markaad ka qayb gasho waxaad dhacaysa inaad ka faa-iidaysato qof horle inaad ka barato ee marka hore aadan aqoonin meeshaa la isugu imaanay markuu waxaa soo guuriyey muxuu marka yidhi xaafidka ibnu rajab warkaana u dan leeha
وإنما عنا هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين كواني وحي وجيران مركي وعدي بدعة شيء هي إن يتهي هيئة الاجتماعية كلن كان وقت معين كان سمينها كاسا وحر للنبي وقت جيسان جرينين والنبي دتك هدوه أنها وقت قالوا مصر جرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين نبي وقت قال هارين ما وصل هاي ويقص على أصحابه فيه مركا النبي أصحابتي سووا كوانيو غير خطبتي الراتبة في الجمع والعديان ومركا أنا هين خطبتي دائم كهيد الجمعوينك يعيدها وكسبينها وحن كوا هين نبي يعني كما وصل هين وحراتبة وإنما يذكرهم أحيانا نبي يعني أوقات دقاركود بوانين هي سوى وقت أروح علينا وعند حدوث أمر أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده أما النبي يعني وحوانين هي أهرين مركي سود دريسي تماده لو باهي هي أهرين تاس يعني أكتر دتك اللوانية إن أهرين تا اللوانية مركي دتك يعني لو باهي ثم إن الصحابة اجتمعوا على تعيين وقت له وحيل أصحابته وحي كل من بويري إن أيغو وعد وقت إن أسميان قارة كما سبق علي بن مسعود سيدي وحيل عبد الله بن مسعود كسوهر مري وها أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس إنه أصحابتي سيعني واننا هي مالين كسو خميس إنه واننا هي مركا النبي قال لك مصور نقلين إن وعدك خميس لا اكتواك مركا سو وقت قالوا سمي مركا ماشا أوليه هوران وصو شيغي مركا هورو مركا سو شيغي waa حديث بخاري مسلم يوريين مركا وركا ماشا أو كو شيغي وحو كيري وكان النبي ابن رجب سيدان كيري وحيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعيد أصحابه في غير الخطب الراتبة وحاولوا يري إن بدن النبي وهابوا يري أصحابتي سئلوا واننا هيو أو خطبوي كتشوكتنا وحنا هنو كواننا هيو كخطب الجمعة والعياد خطبوي كتشوكتنا هيوان محاي وخطبت الجمعة يعيدها مركا كوانا هاي كوان خطبوي كاهينا نبي إن بدن أصحابته وانين وقد أمره الله تعالى بذلك إنه دتك وانيان النبي إلهي بافري فقال إلهي وحو يريبو يري وعدهم دتك واني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا دتك يعني واحد أترى هذا الحال دير إله وأيضا النفأهان توضا واحد أترى هذا الحال دير وأيضا النفس توضا سامينها يكاكو إله وقال إلهي وحو يريبو يري ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سلاسة النبي الوي دتك يعني أوير وإلهي جدكيس أغوير هذا يعني حكمة أي كسو أنت يوانا ونكسن أغوير ولكنه كان لا يديم وعظهم نبي وحو يري وان انت ددك واننا هي جوجتك ما دغي جري بل يتخولهم به أحيانا نبي كل بو marka dadka يعني وانين جري كما في الصحيحين سيدي صحيحين كسغنا أنا أبي وائل ومركا حديث كان لغا وري أبي وائل وأن تابعي شقيق ابن أبي سلمة اللي يلاله شقيق ابن سلمة ساسمها بالمرة شقيق بالورجل قال وحو إلى أبي وائل كان عبد الله ابن مسعود وحو أهابو يلي يذكرنا كل يوم خميس مالك الصو خميس إنو نوارنها يوها فقال له رجل نبا وحو يلي يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن وأقول يلي عبد الله بن مسعود كل بقولوا نرى الله يوناي وحو يلي إنا نحب حديثك أنه حديثك وان جعلنا هيوي ونشهي وعلى جعل ليسنينا ولو وددنا وحن جعل ليسني لأنك حدثتنا كل يوم ما نور بيراد وحنا شيخته فقال عبد الله وحيد ما يمنعني أن أحدثكم سدا إن إذي وربه ما نور بإيدي لما يسويني إلا كراهة أن أملكم لفظ قال مسلم بقصنا لكن ما حنكو أركاي لفظيس إلا كراهية أن أملكم لكن مسكم إن إذن نوجي إلى كان يمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة إلهي رسولك سوحوها إنه يعني النقو الإلالين هيو النقو دور هيو أو اختيار قاركود وانا ونوارنا هيو جوكتن نقو مدقي جرين كراهية السعامة علينا أصوى مركا درس نبقو يعني كهانا هيا إنا درسنا مركا أن كده أصوى كهانا هيو كو مركز وحو مركز هدنا سيين وركي ابن رجب مركز سعودة وحو يلي وفي صحيح البخاري هذا الكوارع مصنبا
bukhaari saxiixiisa waxaa ku sugan buu yidhi can ibni cabaasin oo ibnu cabaasna bukhaari uu ka wariyey qaala ibnu cabaas inuu yidhi xadith innaasa fi kulli jumucatin mara fain abayta famaratayn fain aktarta fathalaatha walaa tumila annaas qof buu la hadlahay dadka wuxuu yidhi wax u sheeg buu yidhi usbuuc walba mar u sheeg buu yidhi haddii aad diidda laba uga dhig buu yidhi haddii aad yacni ka badinaysana 3 uga dhig dadka hanuujinin buu yidhi dadka marka laakiin waqti xadaysan marka inuu u sameeyo qofbuu sidaa ku yidhi waxaa musnadka ku sugnaa imaamu axmed asagoo caaisha ka wariyey annahaa wasat qaasa ahli lmadiinati bimithli dalika inay ayaduna u dardaarantay ahlu madiina ninkii wacdin jiray arrintaas oo kale sida cabdullahi ibnu cabaas oo kale waqti xadaysan dadka inuu u sameeyo wa ruwiya canhaa caaisha waxaa laga wariyey buu yidhi annahaa qaalat licubayd ibnu cumayr cubayd ibnu cumayr inay ku tiri xadith innaasa yowman dadka maalin wax u sheeg bay tiri wadaci innaasa yowman maalinna ka tag oo markaa maalin dhaaf laa tumilahum hanuujinin bay tiri laa tumilahum dadka yani muxuu ahaa hanuujinin bay tiri waxaa kaloo haddana wuxuu yidhi cumar ibnu cabdilcaziiz waxaa laga wariyey buu yidhi annahu amara alqaasa an yaqusa kula 3 ayaamin mara ninkii taabiciga ahaa jaliilka ahaa inuu qofka wax wacdinhayo uu amray 3 maalmoodba hal mar inuu dadka wax wacdiyo waxaa kaloo haddana cumar laga wariyey buu yidhi inuu yidhi qof waacida inuu ku yidhi rawix innaasa dadka u raaxee walaa tusqil calayhim ha ku cuslaynin wadaci lqasasa yowma asabti wa yowma athulaathaa ka tag wacdiga maalinta sabtida iyo maalinta talaadada maalmaha kale isaguna xadayn buu fare waxaasoo dhan waxa weye nabiga lagama soo guurin dadka marka yani la wacdinayo waqti xadaysan in loo sameeyo markuu intaa sheego haddana wuxuu soo qaaday markaa kabacdi 2 riwaayo oo shaafici bidcada uu ku qaybinayo awalan soo sheegnay ayuu sheegay haddaba marka bal waxaad marka eegtaa hadalka yani xaafidka ibnu rajab uu yidhi oo uu yidhi kuwaani bidcada ay sheegahayaan waxay uga jeedaan hay-ada ijtimaaciyada ah oo waqtiga gaarkaa ku dhacaysa hadda sidaa wuxuu u leeyahay qasaska hadda la samaynahayo wacdiga la sameyn waa wax mashruuc ah waxa diinta ogashaha dadka loo sheegayo oo lagu soo qaadahaya wax kastaba ha ahaadee laakiin waxa zaa'idka ah oo nabiga waqtigiisa dheeraadka ka ah waxa weeye kulanka noocaasa in waqti gaara loo sameeyo marka haddaba fal fiiri ixtifaalka waxaa ku sugan marka maxay waa ixtifaalka nabiga marka la samaynayo waa wax mashruuca waxa la samaynayo nabiga siiradiisi baa laga hadlahaya nabigii baa la ammaanahaya nabigii baa lagu salinahaya cunaa la bixin waxaasoo dhan soo mashruuc ma soo adilo male waxa kaliya marka ziyaadada ku ah maxay maanta waa maxay waa hay-ada ijtimaaciga waa kulankaa la samaynayo oo waqtiga gaarkaa loo samaynayo sida hadda meeshaan hadda ixtifaalka oo kale iyo bishaa gaarka ee nabigu uu ku dhashay ayaa lagu aadinaya hawshaan marka xilligaa dhacdo uu ka sheekeynayo ibnu rajab oo kale lamid waxa kaliya kusoo kordhay waxa weeye in waqti xalaysan keliya loo sameeyey hadda mathalan waxaad arkaysaa qolooyinkan hadda mawlidka diida waxay sameeyaan muctamaraad sanawiyay sameeyaan ee weliba waqti xalaysan leh sida midka hadda Sweden ay ku sameeyaan mid hadda waqti dheer weliba hadda la sheegay inuu 20 sano wax la mida socday sida midka hadda ay ka bilaabeen koonfur afrika ee wadaadkan hadda mawlidka bushinaya uu ka mid yahay ragga joogtada u taga meelo badan oo hadda waxay ku sameeyaan yurubta laftigeeda ka mid ah ayay ku sameeyaan marka muctamaraadka sanawiga ee sanadkiiba mar la samaynayo weliba ayba dhici ka dhaqaarkoodba bil xalaysanba inay ku samaynahayaan ma nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam jidiyey soo wax nabiga gadaasheeda la yimid soo maaha soo waxay iyagu xadeeyeen ma aha ixtifaalkan marka waxyaalaha ku sugan waa wax mashruuca waxa kaliya meesha ku sugan waxa weeye in waqti xalaysan loo yeelay waayahay marka hadda wadaadkan warkiisa aan soo qaadayno ee markaa odhanahaya hay-adaas ijtimaaciyada ahi waxay dhibaysaa lama arka odhanahaya wuxuu ka mid yahay daa'ifada taymiyada waa kooxda la odhan jiray loogu abtiriyo axmed ibnu taymiya ilaa asaga waxaa shiikhu ahaa ee mashaayikdiisa ka mid ahaa ibnulqayim waa asaga shiikhu ahaa marka ragga afkaartooda dadka ku ta'asulay afkaarta axmed ibnu taymiyu ka mid ahaa walowba lasoo qaado mararkii dambe inuu ka noqday waxyaalaha ta'asurkiisa tusinaya waxaa ka mid ah xaafidka abu zurca alciraaqiy abu zurcahaasi waxa weeye
xaafidka ciraaqiga ee cabdiraxiim la yidhaahdo ayaa dhalay. abu zurca waxaa naynaasiisa la yidhaahdaa waliyudiin baa la yidhaahdaa, kunyadiisana abu zurca axmed ibnu cabdiraxiim baa la yidhahda. marka kitaabka la yidhaahdo darxu tathriib waa kitaabka lagu magacaabo darxu tathriib fi sharxi taqriib baa la yidhahda, oo waxaa lagu sharxahayaa taqriib lasaniid kitaab la yidhaahdo. kitaabka marka taqriib lasaniidka la yidhahdo waxaa iska leh abu zurca aabihiis oo xaafidkii ciraaqiga ahaabaa leh, sharaxana asagaa bilaabay, wiilkiisuna wuu dhamaystiray. marka darxu tathriibkaas oo aabihii uu bilaabay asagoo uu dhamaystiray ayuu wuxuu ku yidhi wa kaana waalidii raximahu llahu, aniga waalidkay wuxuu ahaa buu yidhi allaha u naxariistee. waalidkiisna waa kee? waa xaafidka la yidhaahdo naynaastiisa zaynuddiin, kunyadiisa abulfadli la yidhaahdo cabduraxiim ibnulxusein magaciisa la yidhahdo ee ciraaqiga ahaa. waa xaafidka weyn oo mashhuurka ah ee raggii waaweynaayo muxadisiinta ahaa. ragguu sheikha u yahay maxaa kamid a? waxaa kamid a wiilkiisa laftigiisa oo xaafid iyo muxadis ahaa. waxaa kamid ah xaafidka haythami la yidhahdaa kamid ah, oo hadeerba hadalkiisa aan soo qaadaynay. ibnu xajar asqalaani baa kamid ah, cayni laftigiisaa kamid ah. dabaqadaas waktigaa joogtay xataa markii ibnu xajar asqalaani uu ka warramayo wuxuu yidhaahdaa raggii muxadisiinta ahaa ee zamankiisaa noolaa badankooda asay ku takharujeen. marka muxadis aada iyo aada u weynan badan buu ahaa, oo weliba rag badan oo asaga ku zaman ahaa oo muxadisiin waaweyn ahaa ay ammaaneen oo weliba tafarudkiisa ay ku xagga aqoonta xadiidka haddii la eego ay ku ammaaneen ee subki uu ka mid yaho, ibnu kathiir uu ka mid yaho, calaa uu ka mid yaho, rag badan. marka wuxuu yidhi aabbahay ayaa wuxuu ahaa buu yaxkii inuu sheegahayo annahu kaana mucaadilan lisheikh zayniddiin cabdiraxmaan ibni rajab alxambaliy, inuu aabihiis uu ahaa. wuxuu macnaha tilmaamahay fi tawajuhi ilaa baladi lkhaliil calayhi salaam. wuxuu sheegahayaa ibnu rajab alxambaliyi waa xaafidkan hadda warkiisa soo qaadaynay, iyo aabihii zaynuddiin inay safar isku raaceen oo marka ay aadeen magaalada la yidhaha baladulkhaliil. waa magaalada yacni lagu tilmaamo nebi ibraahim inuu ku aasan yahay, falastiin bay ku taallaa. waa magaalo aada u weyn weya oo macruufa hadda la yaqaano. marka wuxuu sheegahayaa aniga aabbahay wuxuu la ekaa, macaadilnimada macnaha wuxuu uga jeedaa sida muuqata daabad bay wada fuuleen hawdaj leh. marka daabad markii hawdajkaa la saaro waa guradaa, dadku markay raaca qofo dhinacbu marka yani waxa way ka fariisanahayaa, wax loogu talagalay wey. marka waxay aadeen baladulkhaliil, shaahid baa ku yaala nebi ibraahim uu ku aasan yahay. nabigay soo ziyaaranahayeen, masjidkiisay tegahayeen. falamaa danaa min albalad, ayadoo marka mar walba waxay u socdaan asaalatan qabriga laftigiisa inay ziyaartaan ay tahay. aabbahay wuxuu yidhi markii uu u dhawaaday buu yidhi magaalada, waxa u dhawaanaya waa ibnu rajab, waana ay wada socdaan. qaala nawaytu salaata fi masjidi alkhaliili liyaxtariza can shaddi raxli liziyaaratihi alaa dariiqati sheikhi alxanaabilati ibni taymiya. wuxuu yidhi buu yidhi markii magaalada uu u dhawaaday way wada socdaan buu ibnu rajab wuxuu yidhi buu yidhi anigu waxaan niyeystay masjidka khaliil inaan ku tukado. ziyaarta qabriga nebi ibraahim buuna u socdaa, wuxuuna uga jeedaa buu yidhi inuu iska ilaaliyo qofku inuu u safro qabri ziyaaradiisii. oo sidaana wuxuu u samaynahayaa buu yidhi wadaadkii xanaabilada sheekha u ahaa oo ibnu taymiya sidii u wada ilaasa waa ka yidhaahda qabri looma safri kare. oo xadiidkii laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajidu macnaha la aada oo weliba aan xaq ahayne baatil ah. waa laga yaabaa inaanu hadda markii aan raddigaan ku jirno meelo qaarkood warkaa inuu lasoo dhex galo, mararuu ka hadli doono u oran doono dad baa adilada bahalkii baa luqun jabiya, maruu soo qaadi doono. balina anagu luqun jabinayo in ayagu luqun jabiyaan waaya. marka wuxuu yii markuu sidaa yidhi qaala aabbahay wuxuu yidhi waa xaafidkii ciraaqiga faqultu nawaytu ziyaarata qabri lkhaliili calayhi salaam. waxaan idhi buu yidhi anigu waxaan niyeystay oo aan u qasday nebi ibraahim qabrigiisa inaan ziyaarto. uma qultu lahu, marka aabbahay wuxuu yidhi waa xaafidkii ciraaqiga waxaan ku idhi buu yidhi amaa anta faqad khaalafta nabiya sala allahu calayhi wasalam liannahu qaala laa tushadu rixaalu ila ila halaathati masaajida waqad shadata raxla ilaa masjidin raabicin. waxaan ku idhi buu yidhi horta adigu nabiga waa khilaaftay ibnu rajabow, maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi rarka looma adkeeyo ilaa 3 masjid maahane. marka hadda waxaad rarka u adkaynaysaa waa masjid afaraad
waa saddexdii ka mid ahay ila saddexdaas waxaa weeye waa masjidulxaraam iyo masjidka madiina iyo masjidul aqsa waaya وأما أنا فاتبعت النبي لأنه قال زوروا القبور أفقال إلا قبور الأنبياء أما أنا وحي النبي قوار راعيني هاي النبي وحي يدبو يدي قبورها زيارة ميا النبي كسر ريبا وحي يدبو ما النبي يدبو قبورها بيضا لما زيارة كرم قال فبهوت أبا مركا وحي يدبو يدي هذا كان مركا يدبو ابن سجوا وريبا يدبو الأول وحو لها warkii ibnu taymiya ku dhaarintii baa la gadoontay oo kale ilaa waxa way xadiidkii dariirsanayay laftigiisii baa uu ka soo horjeeda marka hadda qisadan waxaa jira faa'iido ku sugan labadan xaafid niyadii bay ku talafudahayaan maanta hadda kuwa waxaad arkaysaa usalli fadla duhri oo kale qofku dhawaaqaya hadday arkaan aad moodo cirkiga dhulkiiba inay soo dumeen oo kale qaylada ka dhacayso walow meelaha qaarkood xamar hataa waxaa dhacday oo nin wadaada ii sheegayay wadaad akrinahaya safiiratu salaad oo warka akrinahaya in mid maalin uu dabcay inuu dilaba hataa wadaagii kuwii shabaabkii iyo balaayada carrada ay ka bilaabanayeen ma waxaasaa ummadda u sheegaysaa bisoolad wato oo hubaysan marka shaygan hadda niyada talafudka lagu magacaabo acmaasha qaar buu kusoo arooray oo sida xajka oo kale marka culummadu markay salaada oo kale ay ku dhacay xajka nabigu niyada waa ku talafudi jiray wuxuu odhan jiray labbayka bixajatin wa cumra oo kale ama hadduu xajinahayo bixaja marka ilaahu waan ku ajiibay xaj baan kugu ajiibay waxay ku macno tahay usalli farda duhri lilahi salaad farada ilaahay u tukanayo marka waxyaalahaasay culummadu uga qiyaas qaateen marka qofku inuusan qiyaaskaa raaca shardi maaha hadduu rabo wuu ka leexan karaa qiyaas kale in badan culummadu way isticmaalaan weliba dhanka cibaadaadka qiyaaskan qiyaasu shabaha la yidhahdo cibaadaadka waa galaa mawduuca meel kale oo aan uga warramay ayaa jira war dheer oo ku saabsan marka hadda meesha waxaa laga garanaya oo kale iyo nimankan xufaad baa waaweyn oo niyo ku talafudahaya ayagoo markaa ziyaar u socda waa yahay marka hadda arrintan muxuu ahaa daa'ifada inuu ka mid ahaa xataa ibnu xajar asqalaani uu kusoo qaadaa horta daa'ifadan ka mid uu ahaa laakiin sida la ogsoon yahay waktigii dambe wuu ka noqday oo wadaadkan taqiyulxismi la yidhaahdo wuxuu kusoo qaadanayay kitaabkiisa dafu shubha la yidhaahdo isku waqtina way ahaayeen wuxuu yidhi meelaha uu fadhiya qaarkood cod dheer buu wuxuu ku oran jiray buu yidhi macduurun assubkiy midhaa hadduu fiidfiidiyay ibnu taymiya ciise uu dabagalay subki waa ka ibnu taymiya radiyey subki waa mid loo garaabayo marka wuxuu leeyahy yacnii fii takfiirihi buu leeyahy gaalaysiinta subki uu gaalay marka gaalaysiinta la sheegay waxaa weye subki afcaashii uu ku kacay aqwaashii iyo waxyaaluhu aaminsanaa qaarkood ayuu wuxuu ku tilmaamay inay kufri yihiin waxaa ka mid oo kale waxyaaluhu aaminsan yahay oo xataa ibnulqayim uu kaga dayday waxaa ka mid ah naarta iddaha in laysugu dhufanaya gaaladu ka soo baxaya intee aayadood bay marka duminaysaa oo kale waxaa ka mid a inuu qabo ilaahay intuu jiray makhluuq inuu weyliye toos buu u diidaya in la yidhaahdo makhluuq oo dhan ilaah baa ka horreeyey taasi awali waa war ku cad weeye warkaas sidaasay hadda ku jecel yihiin oo ku rabaano xataa badankoodu iyadoo warkaas inuu baadil yahay og yihiin qaarkood bay ku difaacahayaan wax hadda ka hadla waxaad arkay albaanigaaba labadaasba inuu diidan yahay mawjiya asagoo hadal aad arkayso muxuu ahaa markuu weliba ka hadlahayo midda alcaalamu qadiimun binawci ilaa iyadu waxa weeye waa fikradii falaasifada waxay yidhahdaan alcaalamu qadiimun bidaati oo waxa uu cirkaan iyo dhulkaani waxay yidhaahdaan sida ilaahba u horreeyey marka makhluuq asagu uu khiyaar ku sameeye ma aha cilo iyo macluul bay isku yihiin oo wax ilaahay ka dhashay marka alcaalamu qadiimun binawci marka la yidhahdo manaha makhluuqan wuxuu leeyahy kan mid kalaa ka horreeyey makhluuqan makhluuq kalaa ka horreeyey cirka cir baa ka horreeyey waxa weligiiba ilaah makhluuq baa weli marka ilaahay mar walba makhluuq asaga makhluuq baa weheliyey iyo makhluuq oo dhan ilaah baa uumay wax iska hor imaanaya wey marka weliba hadaladiisaasi waad la yaabaysaa markaad aragto weliba midaan laftigeeda alcaalamu qadiimun binawcida falaasifada qaarkood way qabaan waxyaalaha lagu gaalnimo xukmiya bayna ka mid tahay waayahay marka ibnu xajar asqalaani laftigiisuna kitaabkiisa imbaa-ulqumriga lagu magacaabo markuu ibnu rajab ka warramayo uu soo qaado wuxuu yidhi waxyaala wuxuu yidhi maqaalaadkii ibnu taymiya inta jawaabay baa dadka ku kahabeen buu yidhi kabacdi wuu ka noqday buu yidhi markaasu wuxuu leeyahay fanaafarahu taymiyuuna taymiyiintii markaa way ka carareen waa magaca loo yaqaano xilligaasi moogta markii dambe oo qoladaas waagi hore taymiyiin baa la oran jiray laakiin in cabdulwahaab markuu soo baxay waxay qaateen magaca kan wahaabiyada la yidhaahdo
marka hadda ninkan oo mashaayikhdiisa ka mid ah walowba mashaaikhdooda ka mid ah walowba hadda ayagu marmarka qaarkood siirada uu soo qaadahay ibnu taymiya cilmigiisi iyo aqoontiisi uu ku ammaanahay ay soo qaaday wararkaasi muxuu ahaa yidhahdeen wadaadaas bahalkii muxuu ahaa haba ka sheegeen wax la midsanaya ma aha ninkaan ibnu taymiya waa ammaanay hadda qofku wax wixii wanaagsanaa uu lahaa oo hadda ibnu taymiya laftigeeda culummada haydaarisaa qaarkood haddana cilmigiisi iyo waxyaalihii jawaanibtii saree marka uu lahaa aqoontiisa ay ka mid ahayd aqoontiisa dheeraa ka mid ahayd ma aysan inkirsanay marka hadda intaan waxaan kusoo gabagabaynahayaa hordhaca waxyaalihii aan u daliilsanaynay ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam qaybta marka kale ah tani waa hordhici weeye weliba ku saabsanaa waxyaalaha ixtifaalku uu ka kooban yahaya amaa ixtifaalkoo isku duuduuban waxyaalaha culummadu ay u daliilsadaan waxyaalaha maakhida ee laga qaadanayo taas waxay nooga bilaaban doontaa qaybta noo soo socota ayadoo mathalan yani ah kitaabka iyo sunnada iyo muxuu ahaa qiyaaska iyo sida muslimiinta badankooduba ay qabaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam